Maalin kasta malaayiin qof ayaa isticmaasha Alibaba, shirkadda ugu weyn ee ganacsiga internetka Shiinaha. Laakiin ka hor inta aanay noqonin shirkadda ugu weyn ee ganacsiga online-ka Shiinaha, waxaa jiray sheeko ka dhex guuxaysay qof maskaxdiisa, laakiin u beddelay si run ah. Qof liitay oo da'yar ahaa oo aanan haysan wax dhaqaalo ah ayaa fikraddiisii u beddelay mid hirgashay oo dad badan ay la yaabeen. Waa Jack, ninkii aasaasay shirkadda Alibaba. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Jack wuxuu ku dhashay dalka Shiinaha sannadda 1964, xilligaasi oo Shiinaha uu ku jiray saboolnimo iyo xannibaad dhaqaale. Qoyska Jack wax lacag ah ma haysanin, mana aysan ahayn reer awood u leh dhaqaalaha qoyskoodii. Markii uu dugsiga sare ku jiray, wuxuu ku dhacay 2 jeer imtixaankii dugsigii hoose iyo sidoo kaleeto 2 jeer oo uu ku dhacay imtixaankii dugsigiisii sare. Markii uu codsaday jaamacadda, wuxuu ku dhacay 3 jeer ka hor inta aanu ku guulaysan isku daygiisii afaraad. Jack wuxuu sheegi jiray mar walba, "Anigu ma ihi nin caqli badan, laakiin waxaan ahay nin aad u dadaal badan oo mar walba riyadiisii ku dheggan." Inta badan saaxiibadiisii waxay heleen shaqooyin wanaagsan, halka isaga in ka badan 30 jeer shaqo loo diiday. Waxaa ka mid ahaa shirkadooyinkii u diiday shaqadii uu ka codsaday KFC. Waxaa la codsaday 24 qof, laakiin waxaa la aqbalay 23 qof. Markii isaga laga reebay shaqooyin badan sida booliis, hotel iyo sidoo kaleeto shaqooyin badan ayuu codsaday, laakiin waa laga diiday. Markii uu baranayay luqadda Ingiriiska, wuxuu 9 sano bilaash ugu turjumayay dalxiisayaasha imaaday magaaladiisa si uu luqadda u barto, taas oo ka dhigtay nin furfuran oo dunida wax ka fahma. Sannadkii 1995, markii ugu horreysay oo uu safar ku tagay Mareykanka, saaxiibkiisa ayaa tusay waxa loo yaqaano internet. Wuxuu Google-ka ku qoray beer, laakiin wax natiijo ah oo Shiinaha la xiriira kama uusan soo bixin. Halkaasi ayuu ku yidhi, "Shiinaha waa inuu yeeshaa internet u gaar ah, waana fursad." Markaasi ayuu bilaabay shirkad yar oo website-yada samaysa, laakiin guuldarro ayay ku dhammaatay. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu u arkay guuldarradu inay tahay cashar lama ilaawaan ah. Sannadkii 1999, isagoo gurigiisa ku jira qol yar, isaga iyo 17 saaxiibadiisa ka mid ah waxay bilaabeen shirkadda Alibaba. Wuxuu dadka ku dhiirigelin jiray erayo ka mid ah, "Ma haysano lacag, ma haysano tiknoolajiyad, laakiin waxaan leenahay riyo weyn iyo dad ku hagan riyadoodii wanaagsan." Bilowgii bangiyada ma aynan siinin maalgelin ku filan shirkaddiisa, dadkuna ma aamini jirin. Laakiin Jack wuxuu ku celcelin jiray, "Haddii aad riyo leedahay, waa inaad difaacdaa, xitaa haddii dad badan ay ka hor yimaadaan." Alibaba ugu dambeyntii waxay noqotay shirkad beddeshay ganacsiga Shiinaha iyo caalamka. Maanta waxay leedahay in ka badan 900 oo milyan oo macaamiil gudaha Shiinaha iyo dibadda Shiinahaba. Jack mar wuxuu ka mid ahaa 100 qof ee ugu saamaynta badan adduunka. Inkastoo hadda uu yahay nin bilyaneer ah, mar walba wuxuu sheegaa in weligiisa uu ku faraxsanaa noloshii fududeed. Maalmihii uu lacag la'aanta ahaa inay ahayd kuwii baray qiimaha nolosha ee uu maanta joogo. Waxaynu soo qaadanaynaa casharada aynu ka baran karno qisada Jack. Guuldarrooyinku waa qayb guusha ka mid ah. Jack wuxuu ku dhacay imtixaano iyo shaqooyin badan, laakiin ma quusan. Inaad diidmo badan la kulanto waa tababar. Wuxuu sheegay in diidmo kasta ay ka dhigneyd mid xoog badan oo sii xoojisa riyadiisa. Midda kale, riyo weyn iyo aragti cad inta badan dadka ku wareegsan ma rumaysan internetka Shiinaha, laakiin isaga riyadiisii ayuu difaacay, haddana wuu ka dhaweeyay wixii uu aaminsanaa. Hogaamiyaha wanaagsan waa inuusan ahayn kan ugu xooga badan, balse waa kan dadka kale ku dhiirigeliya inay yeeshaan fikrado u gooni ah oo suurtagal ka dhiga mustaqbalkoodii
mid ifayo. Gabagabadii iyo gunaanadkii muuqaalkeena, sheekada Jack in qof kasta xitaa haddii lagaa diido shaqooyin iyo imtixaamo aad ku dhacdid aad gaari karto heerka aad rabtid nolosha. Waxaa muhiim ah inaad riyadaadii ku dheganaato, inaadan ka quusan guuldarrada, iyo sidoo kaleeto in dadka kale aad ku dhiirgeliso inay kula wadaan safarkaadii. Haddii Jack oo aan lahayn lacag iyo caqli sare iyo xiriir bulsho uu ku guulaystay inuu dhiso shirkad qiimaheedu yahay boqolaal milyan, adigana waxaad gaari kartaa riyadaadii haddii aad ku dhegto dulqaad iyo go'aan qaadasho iyo talo saarasho Alle Subxaanahu wa Tacaala. Muuqaalkeena maanta intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa. Fadlan daawade, haddaad nagu cusub tahay nagu soo beer, haddaad hore nala joogtayna fadlan muuqaalka like saar oo la wadaag asxaabtaada. Intaynu ku kulmi doonno muuqaalkan muuqaalkiisa kaleeto, waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.